السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داودياشا qiimaha iyo qadarinteega mudan meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada network media production waa mar kale barnaamij kale xiiso badan oo aynu ku qaada dhigi doono ama aynu ku iftiimin doono aragtida loo yaqaan secularism ama waxa loo yaqaan calmaaniyada hadaba daawadayaal barnaamijku waxaanu ku soo qaadan doonaa maxay tahay calmaaniyadu xagaysa ka timid aragtidan yaa aasaasay maxay se ka turjumaysa halkay salka ku haysa yaa se loogu talagalay daawadayaal barnaamijka ayaynu ku qaada dhigi doonaa waxaynu leenahay ku soo dhawaada aragtida lagu magacaabo theocracy oo ah nidaam dawladeed oo ilaahnimo sheegta ama ku andacooday inuu toos ilaahay ula xiriiro waxay ahayd aragti ka hana qaaday wadamada reer galbeedka waqtigii kiniisaduhu talada maroorsadeen kiniisaduhu intaa kuma eekaana waxay isku darsadeen faragelin ay ku sameeyeen diintii ay haysteen oo ay waxna ku dareen waxna ka dareen isla markaana waxay gaashaanka ku daruureen cilmigii sayniska iyo horumarkii aadamaha taasoo horseeday hardan colaadeed oo la magac baxay conflict of church and state oo ahaa dagaal afyaadinba leh oo ka dhexaloosmay baadiriyiintii iyo hormoodkii cilmiga aadamaha dagaalkaas waxaa ka dhashay wax loo yaqaan secularism oo ah in diinta laga irdhoobo dadkeedana laga qaloodo sidaan carabka ku dhufanay kiniisadu waxay ku tagrifaleen waxyigii iyo diintii lagu aaminay markii haddaba cilmigu madaxa la kacay waxa la kawsaday doodo iyo muran xoogan oo ka dhex qarxay labada kooxood ee kala ah saynis yahanada iyo baadiriyiinta doodu may ahayn xaq raadis waxay ahayd libin raadis qolo kastaana waxay ku mitidaysay inay guusha la hoyato libintana la holato saynis yahanadii waxay ku dhiiradeen soo bandhiga wax soo saarkoodii aqooneed tusaale ahaan 1543 ninka loo yaqaan Nicholas Copernicus waxa uu ku dhawaaqay aragtidiisii ahayd Earth's rotation ama wareegga dhulka kiniisadu waxay ku dadaashay inay dhicisayso aragtidaas sida ugu dhaqsaha badan hase yeeshee talaabadii kiniisadu qaadi lahayd waxa ka soo horumaray geeridii Nicholas Copernicus waxa se xasuusin mudan inaanay fikradii ahayd wareegga dhulku halka ku dhiman ee uu si aanba qaaday ninka lagu magacaabo Giordano Bruno 1548 waxaanu ka mid noqday dadkii fikradda u dhintay ee kiniisadu khaarijisay muddo gaaban kadib waxa madaxa la kacay in lagu magacaabo Galileo Galilei 1564 ilaa 1642 oo ka soo jeeda dalka Talyaaniga waxa uu soo biiriyay waxa loo yaqaan telescope-ka isla markaana wuxuu daafacay Copernicus iyo fikradiisii wareegga dhulka waxa lagu dirqiyay inuu ka laabto fikradan intaanu naftiisa ku waayeen waanu ka laabtay aqoontii iyo horumarkii cilmigu halka kumuu hakan waxay soo taray aqoontii sayniska waxa soo ifbaxay cilmi horle iyo culummo dardar qaba diyaarna u ah inay u dhintaan aqoontooda oo naftooda u huraan dhinaca kale waxa quus laga joogsaday aragtidii guracnayd ee baadiriyiinta taasina waxay gogol xaad u noqotay dhimashadii kaalinta baadiriyiinta iyo dhalashadii la eeday ee calmaaniyada reer galbeedku may garanin inay kala saaraan diinta iyo dadka ku danaysanaya qori iyo qiiqiisa waa la isla tuuraa ayay tala ku ururtay haddaba inkastoo maryo dhiig la kala furtay haddana dawladaha reer galbeedku si buuxda ugamay xuub siiban diintooda dawladaha reer galbeedka ee maanta jirana waxa loo qaybin karaa 4 nooc siday tilmaameen qoraayo muslimiini waana sidan kow dawlada ka xiriir furtay diinta oo aan dab iyo deegaan toona la wadaagin sida dawladda Faransiiska oo ah rugtii calmaaniyada iyo hoygii oo calmaaniyadu ku barbaartay guntiya gunaanadkii calmaaniyadu maaha fikrad muslimku gayo waa dabin loo qoolay ama loo dhigay muslimiinta sida haddaba uu ku baaqo Bernard Lewis oo ah ninka qoray buugga loo yaqaan Islam and West shirqool kale loo maleegay wadamada muslimiinta waxa qayb ka noqday ardaydii muslimiinta ahayd Soomaaliya asaagoodba waxbarashada u aaday wadamada reer galbeedka waxaana lagu aababiyay in la kala saaro diinta iyo dawladda fikradaasna waxay ku liqeen si duuduuba sidii midhaha darayga waana hubantii in ardaygu yeesho talaabada macalinkiisa sida uu tilmaamay abwaankii weynaa ee doodaan la oran jiray markuu lahaa
man maroor tusiyaa iyo jidkii toosan mariyaaba ardaygu meelo waa uga ekaan macalinkiisii markay soo guriyo noqdeen ardaydaas waalidiinkaarka ahaa waxay galaafteen dadkii waxtarka ka sugayay oo ay u horkaceen diin la'aan waxayna qayb ka noqdeen ushii gumaystaha ee uu sheegay barkhad cas isagoo England jooga buu idilo ushuu soo fidshaymayso waa taaramidii oo fatirtee itaal dari aan la eedaade aan ooya albaabka ii xidha